waxaa maanta si rasmi ah xilkii ula kala wareegay barasaabkii hore gobolka Awdal Cabdilaahi Jibriil Gaxnuug Buraale iyo sidoo kale barasaabka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay gobolka Cabdiraxmaan Axmed Cali. Munaasabadaasi oo ka qabsoontay gobolka dawladda hoose ee magaalada Boorama ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye, xubno ka socda xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland, duqa degmada Boorama, xildhibaanada golaha deegaanka, waxgaradka, aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta. Munaasabadaasi oo ugu horeyn ka hadleen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ayaa waxay halkaasi ku soo dhaweeyeen barasaabkani cusub ee gobolka Awdal loo soo magacaabay, iyagoo sidoo kalena sii sabootiyay barasaabkii hore isla markaasina hadalla dhiirigelin siiyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Gudoomiye hore waxaan leeyahay waan ku sagootiyeynaa maca salaama meel roon Allah ku geeyo. Gudoomiyaha cusub waxaan leeyahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkani waa gobolkii tacliinta. waxaan kaloo soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub ee gobolka Awdal loo soo magacaabay Cabdiraxmaan. waxaan sii sagootineynaa maanta gudoomiyeenii hore oo nin qaali ahaa. waxaan filaynay in uu ka hari doono, laakiin barasaabka cusub barasaabka hore waxaan leeyahay good luck, meel khayr qaba insha Allah. waa ku ducaynaynaa adoo aan la ilaabi karay sidaad gobolka uga shaqaysay. ka cusubna waxaan leeyahay aad iyo aad u soo dhawow. maamulada halkan ina soo maraya waxaan leeyahay Cabdilaahi ilaahay meel khayr laha ku geeyo. dadka reer Booramana waa inankayagii bay ku oranayaan, waa kii halkiina ku oran maayaan, waa gudoomiyihii gobolkana ku oran, laakiin waa inankayagii bay ku oranayaan. Gaxnuug kulay taariikhdiisa in badan baa ka sheekeynaya wixii uu ka qabtay gobolka. wax qarsoona ma runtii. Cabdiraxmaan Axmedna waxaan leeyahay Cabdiraxmaan Axmed Cali waan ku ducaynaa ilaahay kugu asturo xilka. gudoomiye hore gobolka Mr. Buraale wax badan buu gobolka ka qabtay run ahaantii isagoo yimiday xilli kaambay oo waqtigaas uu socday kaambaygu. waxyaalo barasaabka cusub waxa uu yaala hawl aad iyo aad u ballaaran. waxa hadda curatay xukuumad cusub iyo maamul cusub. hawlaha u horeeya ee looga baahan yahay barasaabka ee hadda hor yaalla waxa weeyaan waa dhinaca xaslashada, dhinaca ammaanka iyo xasiloonida dalka. barasaabkii hore waan u ducaynaynaa, waana sii sagootiyeynaa, oo weliba anigu khaasatan waxaan ku sagootiyeyaa shahaado sharaf baan ku sagootiyeyaa. taasina ay keentay xilkii iyo waajibaadkii muddadii yareed ee koobneed ee uu joogay uu ka soo baxay. I think inuu taas ammaantaas iyo wanaaggaas iyo jacaylkaasba ku mutaystay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan kaloo qirayaa intii iminka wasiirka waan wada soconay ilaa dhowr gobol baanu barasaabyadu kala bedelaynay. waa gudoomiyihii horeeyay ee shahaado sharaf lagu sagootiyaan filayaa inaanan hore arag. taasina waa aqoonta iyo albaxnimada reer Awdal bay keenaysaa. intaasi kadib waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintani xilka la kala wareegayay iyagoona uga mahad celiyay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. waxaan uga mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inuu u soo igmado mas'uulka gobolka Awdal anna iga bedelo. waan ku hambalyeynaya aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay. anigu kursigaygii siduu sheegay xogayuhu wuxuu ka bannaan yahay xisbiga kulmiye dhexdiisa. wuu isi furayo imankaan ku fadhiisanaya haddii ilaha yidhaahdo. waxaan u mahadnaqayaa oo u hambalyaynayaa barasaabka iga horreeyey ee hawsha badan loo qiray inuu qabtay. waan u hambalyaynayaa. aniguna waxaan ballan qaadayaa inaan gobolka dego oo talagalkaygaba ah oo aanan noqon wixii duruufi keento mooyaane aan kulli nin dhayaldhayal ku baxaya. ugu dambeyn waxaa halkaasi hadalka soo gabagabeeyay isla markaasina xilkii uu kala wareejiyay labadani mas'uul wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye. waxana uu yiri waxaad sii sagootiyeysaan barasaabkiinii hore oo aad u ammaanteen, wax qabadkiisina sheegteen. waan hubaa inuu leeyahay ammaanta. waan hubaa wixii aad sheegteenba inay yihiin wax mutaystay. gudoomiyihiinii hore halkan maanta aad ku sagootiyeysaan. waxa isu maqan tihiin waxa weeyaan Cabdiraxmaan
waxaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan iyo soo dhoweyn aad soo dhoweysaan ood la shaqaysaan. Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha, telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Boorama.